بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعن داودياشا قدرنتا يقيمها إن غمضان ميل والبون نغا داوانيسان يسي والبون نو داوانيسان كوسو دبادا برنامجينا غارهان برنامجكينا قصooyinka ee quraaniga Allah ba halkan aan idinkaga soo gudbiyo maanta maxaan idin sidaa insha Allah taala barnaamijkan kii koorey waxaan kaga hadalnay Maryama bintu Imraan sidoo kale sheeko yar ama qiso yar ee halkaas ku dhex jirta ayaan halkan sidoo kale aan kaga sii falanqayn doonaa barnaamijkan hadduu rabweyne raali ka noqdo ka hor intaan barnaamijka gudagalin fadlan walaal haddaan nagu cusub tahay subscribe saar si ay dhiirigelin inagu noqoto sidoo kale ha ka iloobin barnaamijyadan haddaad ka heshay inaad la garayso shishar garay muuqaaladeena si ay meelo fog u gaaraan sidoo kale gambaleelka furo si aad u noqoto qofka koowaad ee hanta ama haniya barnaamijyada halkan aan idinkugu soo gudbiyo ee xiisaha badan maanta waxaan ku soo qaadan doonaa Maryama bintu Imraan qisadeeda markaan ku dhex jirnay iyo alle wuxuu kaga hadlay qofkii la kafaala qaasiyay ee Maryama in oo ah nabiyullaahi Zakariya markii uu arkay maadaama qof duq ah gabooway oo awlaad aan dhalin uu ahaa nabiyullaahi Zakariya ayaa waxa dhacday in Maryama markuu u soo galay baraashin uu helo oo dhaho Maryama sidee kugu sugnaatay ilaahay ba إلهي أكتسب بوئي ما هذه الليلة مريم قالت هو من عند الله مركز وحيراعنا إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إلهي وحو أرزقا قفكو دونه حساب لآن أيو إلهي سبحانه وتعالى أرزقا مركز كذب أيا نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام هنالك دعا زكريا ربه زكريا المركز وحو بريا رب جيسا محونا ليا بالفيري دعوة عجيب قف والبائن كفائدة سلربو قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وحوليها ربي يو إيه بي عرور ونكسن أدقوا من الدعاء أقبل بدن أو أجيبات تهيا مركز با إسلام مركي إليه سبحانه وتعالى دعاء ديسا أما ويديراتا أما ويكوسو هرمرتاو لكن أنوالا أقبل مرول بقفك مسلم كمؤمن كدعاء ديسا بل فيري ملائكة أيا أودا واقضي فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب السقو ميشو كدو كان يجوغا أيا الله دباقي إلهي إنو أقو بشاري الله شاقي إن الله يبشرك بيحيى ما شاء الله مركاسا انت مركي الله يبوها يا وحوليهي سيدي ربيو أي أقو سقناتي سقو عاسين أهين أنا دقة xaaskayga ma dhalays ay tahay sidee ilaahay wuxuu leeyahay ilaahay malaa'ikta ayaa waxay dhahay ilaahay wuxuu doono sidaas ayuu ahaanayaa ilaahay markuu amar xukumayna kun ayuu leeyahay ahaw fayakunu una ahaanayaa markaa sidoo kale markaas wuxuu leeyahay ilaahu rabbiyo raxmaanow bal rabbigiisa wuxuu ka codsanayaa in aayad uu yeelo markaas waxa leeyahay qaala aayatuka ألا تكلم الناس 3 أيام 3 ليال مذا الله ميل ساس كسو كلا هورتي مركا ربي جيس إنه تصبح صدو سدح مالين دتك أو لهدلين إلا أما سدح حبين إلا إشار إنه سمي مويه أي علامة دلودي ما دام يسقى وعصدي مركا إن شاء الله تعالى أدونك حكمة كتير سمحتها إلهي أدونك مرنا ما ضيعه إلهي أدونك مرنا ما ضيعه maxaa yeelay kaliya isaga ayaa la fiirinayaa sidoo iimaankiisa yahay sidoo rabbigiisa ugu xirayaa kaliya ilaahay subhanahu wa ta'ala waa tuu dhahay waan idinku imtixaami xoolihi jiradii iyo waxyaabo kale oo tiro badan ayaa ilaahay inuu dadka ku imtixaami la shay kaliya adaa sabarkaaga iyo iimaankaaga la fiirinayaa marka wax xigmada sheekada ku jirta ilaahay subhanahu wa ta'ala adoonkiisa haduu gacmaha u baryo u horsado inuusan waxba u weyneenin ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siinaya hadeeraata ama hayso yaraataba oo haloo soo dedejiyo xigmada sheekadeena ku jirta waa intaas guud ahaan barnaamijkeena maanta intaas ayaan ku soo gabagabeynaa Allah waxa halkan idin kaga tabinaya anigoo ah walaalkiin saaxiibkeen Ismaaciil Maxamed Cali inta barnaamijkan mid ka saga inuu ku kulmi doono daawadayaasha sharafta badan Allah ba ku xiran janalkayga waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadino nooli kulanta dambe oo xiiso leh